بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقاعي واسماعيل موسيل قد قداوان الصالة واسلبرتيني مريكتين كلهين يوتيوب كاسماعيل سيد فضل هداد كو عصوب تهي channel كوسو لو سبسكرايب تنصار قنبلين كنو فرو فيديو وانا لاقري ان ما انت بالوحان كيرا هدي دونا سيردو تاقي دونا صدح قلوب كورن دونا مقالة تن ينت لما عقاه وطلو وركيو المحوية هي مقالة تن ينت لمدكا مقالة تن هرقيسا ينت لمدكا وحي لهدين بالوحان دونينها إنانو نولاشي هوري وحكي بديلو oo sidaanu markii hore u fakiraynay iyo sidaan markii hore u soconay dariiqii inaan bal dariiq ka duwan marno waxaan leeyahay hadda doonayso horumar samayso shacabka reer Hargeysa horumarku dhowr qodob baan ka qaybin karnaa laakiin laba qaybood oo waaweyn laba branch ayuun baan hoos geyn karnaa ima inuu noqdo horumarkaasi horumar macnawiya oo aan la taaban karin waa ima inuu noqdo horumar maadiya oo la taaban karo oo la arki karo oo wuxuu yahay iyo wuxuu galay iyo xuquuqda garanayo in horumarka macnawiga ah ka hadlimayno maanta oo maalin kale iyo mar kale ayaynu ka dhigan doonaa horumarka macnawiga waa sida waxbarashada tacliinta qofka fikirkiisa maskaxdiisa wuxuu arkayay inuu horumariyo oo halkii shalay gobolka ugu dhacay waagu haduu kugu bariyo inaad maanta wax intii kale ka sii doon arki karto wax kale ku sii fikri karto in aad horumariso naftaada iyo wixii aad baran lahayd oo dhan kaas waa macnawigi kamaadiga ah la taaban kara la arki karaano waa wixii bilicda ishu qabanaysa deegaankii nadaafada ah marka shacabka Hargeysa iyo inta la mid ah magaalooyinka kale meel joogan waxay yiraahdeen bal taas aan ugu doonaynaa taa inuu wax ka bedelo oo bilicdi marka hore aan lahayn muuqaal aan lahayn siin lagu soo hagaagi jiray waxaan u muuqan jiray waxaan ahayn wixii marka hore naga bartay wax ka duwan inuu lagu yimaado oo lagu barto oo lagu arko aan la nimaadno waana ku kicin waana bilaabeen waxaan leeyahay qodobka koobaad talaabo kasta oo aad horu qaado talaabo kasta oo horumarineed oo aad horu ku socoto hayaraato oo mid yara saqiira ah ha weynaato mid weyn ha ahaato dheeraato mid dheero soo daba jiitanta muddo dheer aad u socoto ahaato mid gaaban oo hinteer dhow ha ahaato mid waliba horta waxay kaaga baahan tahay lambar 1 ko dulqaad sabir adkaysigeeda inaad lahaato weeyaan waad kici waad dhici inaad kacdo weey waad kufi oo waad toqon inaad adkayso weey waad liici oo waad ciirciiri inaad dhiirigeliso weey inaad sii dhacdo tiraahdo may waan sii raacinaya maaha inaad kufto aad dhacdo aad kici weeda sii jiifto maaha inaad kufto aad doqonimo maaha inaad sii jiifto aad kici weeda ayaa ku doqonimo ah wal kasta oo aad qabato maanta waad dhidi oo waad daali oo waad kici oo waad rafaadi inaad tiraahdo britole ma inaga daashalay baan maxay ahayd tole naftu naga baxay maanta miyaan ku celin karayna maanta markaad gasho magaaladeeda nadiifsan dhowr rugto biri hadan way kaaga baahan tahay taa oranin shalay baanu rafaadnay naftu naga baxaano haraadnay waa sidee maantana miyaad nagu sii wadaanuun adkaysigeeda horta hawsha yeesha shacabka reer Hargeysa inta la midka oo adkaysigeeda yeesha hawsha aad ku kacdeen maanta waa qodobka labaad wixii aad maanta qabatay biri kugu soo noqonin mawjeedkeegu muxuu yahay maanta hadaad guriga ka bilowdo aad hortiisa ka bilowdo aad suuqaaga gasho suuqaaga magaalada Hargeysa iyo halka kugu dhow aad ka gasho aad nadaafadayso aad bacda yar ku laaban caagada yar ku qonbobtay sigaarka halka yaala haashka yar si tuuran garaabada ku qalashay halka taala diirka qudaarta kala duwan meesha dhulka ku qalalay ku dhagan lagu siimay lagu simraxoolayo hadaad ka gurtaad ka nadiifiso maanta hadii isla britole ama maanta warka gelinka hore nadiifiso gelinka dabaad ku soo noqoto isla meesha noociya sidii u karuuran sidii ah maxaa taransatay ma waxaan daalahayn baa taransatay qodobka labaadka wuxuu ku leeyahay war waxaad maanta qabatay biriye kugu soo noqon oo maanta meesha nadiifisay birito noociida ha u iman too noociidiya dawaagu damayu kugu bariyin waxa shala qabatay ha ahaado wax muuqda qodobka saddexaad wuxuu weeye war waxa la yiraahdo wax wada qabsiga iska wax u qabso oo wax wada qabsada inaynu aan ka daalin aynu soo celino oo bariga hore waxa la wada qabsan jiray biriyahan doon ka daalay in qof waliba oranay aniga tookadeeda iyo tayn man u dan haynaya oo tan guriga iyo hortiisa ka nadaafada ka guro intaas aan buro ku sidaaba waraynu isku nimaadno oo mid shaqeeyo iyo mid wax barta iyo mid daaqaba ragga daaqa khaasatan waxa la leeyahay ragga daaqa ee waqtigoodii ku dilaaya maxay ahayd tole garaabada iyo duufkiya dhareerka ka daadanaya waqtiga ay halka ku dilayaan war dhulkiina iyo dadkiina intaba galiya dhulkiina iyo dadkiina iyo dantiina intaba galiya waqtigana cidlada ku gumaadaysaan ka daaya sida haddii saddex qodob kaga dhabayno inuu dulqaad u yeelano waxaan qabanayno inaan waxaan maanta qaban aan biri inugu soo noqon ee meeshan shalay hagaajinay inaan meel kale hagaajin way isla iyadii aan hawshii shalay waqtigeeda lama aan naga qaadanin qodobka saddexaad oo ah inaanu iska wax u qabso ku shaqeyno oo aan qofna qof wax ka sugin qofna inaan qof wax ka sugin ee iska wax u qabso oo wada tashi wax ku qabso wada jir wax ku qabsada aan ku qabsano waxaan arkayay akhyaar dhalinyaro badan oo iskooda wax u qabso ku dhaqaaqay oo le wajaafooyin baa naga imanaya xagga bulshada markii hore meedan qaban haynin markuu maanta maayir cusub qabsaday kii hore meedan la qaban haynin waxay ujeedadu maxay tahay idinku ujeedkuna horumar ma ahay wax kala wadaan
ardayda ama akhyaarta ardayda u badan weliba dhalinyarta ah waxay yidhaahdeen waxaanu markii horena ahayn dad aan meel u socdaan meel ay ka socdaan aan lahayn maantana waxaanu ahay dad wax u hirayaan oo wax soo hirayaan wax u muuqdaan oo cid hirka tusta ayaanu aragnay dad anagu hirkaan ala tusay baanu higsanaynaa war waxaan leeyahay iftiinka idin baxay ee aad higsanaysaan nalka maanta idin ifaya ha iska daminina haddaad maanta nalka idin ifaya sii kordhisan weydaan oo babin weydaan oo hurin weydaan dabka baxaya dee wuu iska dami doonaa beri toolana dee halkii baan ku noqon doonaa ee aynu nalka inoo baxay iftiinka aynu raacnay aynu sii kordhisano aynu sii shidno aynu sii hurino aynu sii huraaqino ayaynaan daminin dhammaantiinba saddexa qodobna aynu ka dhabayno aynu ka warkeenno ee aynaan noqonin maanta kac beri toole ku furo saadamana jab malkeedii ha marto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باشا عبك سومالي لان خاصة هرقيسة إيه انتا كالي إيه لمدك إيه لمعك إيه دونية إيه نوشن وحكا بدان